xooli baa noo raystay har bay noogu xareysan yihiin bacadkay ka asturan yihiin dabayshay ka asturan yihiin shaqaalihii baa noo nastay oo maanta meelu ku tukada helay oo meelu seexda helay oo meelu midiya dhigta helay annaga dawladda hoose cunaqabatayn baynu ku haysaa maayurkuna keligii ma aha waxa weeyaan xoogay baan ku cabanayna oo xoog hayaan ku cabanayna oo iyaguba ka diro dibada ka riixaya maayur xubno ka mid ah hiliblayda xoolaha magaalada burco oo warbaahinta waraysi siiyey ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin tayada iyo nadaafadda kawaankan cusub ay xoolaha ku qashaan ee ay maamusho shirkadda dayib iyagoo xusay inay ku reeyeen kawaankani oo adeegyadiisu aad u sarreeyaan waxaanay cabasho weyn ka muujiyeen dawladda hoose ee degmada burco oo hore sharci u siisay hiliblaydan inay xoolahooda ku qashaan kawaankan balse bay sheegeen hadda go'aankaasi hore ka soo horjeeda waxay noo soo kordhisay faa'iido boqolkiiba 90 waan isfahanay waan israacnay xoolo baan ku qalanaa waxaan qolalaa xoolo xalaal oo mindida neefka lagu gowraco mindi labaad aan lagu gowracin oo faya dhowrkiisu kaali aragyiin oo xalaal oo nadiif oo cusub oo daraya yaanu iibinaa ma iibina wax qurmay maayarka gobolka togdheer saga warqada saxiixay oo shirkadda la heshiiyay oo keenay magaalada taasina waa tii madaxweynaha digreeta madaxweynaha sitaa waxaan u dirayaa maamulka gobolka togdheer ee barsaabka burco waxaan u sheegayaa digreetada madaxweynaha inuu raaco oo tixgeliyo ayaan ka doonaynaa waxaan u sheegayaa madaxweynaha in laga soo gaaro dawladda hoose xooli waana loo soo qalaa si nadiif ah loogu soo qalaa si sharaf leh baana loogu keenaa wax yirtaayay wax dhibaato aan kuma qabno shirkadda iyo annaguna waan iswaafaqsanay gacmahan u saysanaa annaga dawladda hoose cunaqabatayn baynu ku haysaa dawnahay hiliblayda gobolka togdheer annagoo isku duuban oo isku kalsoonidaan ku tagnay mar shirkadeeda ku joognaa waxaan ku orinay kayna muraad waxaan ku marba nagu soo kicinayo koox faya dhowrkayga caafimaadkayga iyo nadaafadda ilaahay naga siiyo shirkadaaday wax ka sheegaya waxaanu leenahay 5 talaabo dib nooga qaad guriga sarkaalku ku nool yahay way ka guda qurux badan tahay 24 saacadood leeyd iyo biyo iyo qaaraad maydhaxaya hilib nadiif ah loo keenaa saribadana loogu keenaa sharaf baan ku wada joognaa midada neef lagu bireeyo neef kalabada mid gaar ah lagu bireeyo saxaanu qabnaa hilib madow baanu qabin hilib buluugaanu qabin taray baanu qabnaa ilaahayna waa ka marxaati kuwa maanta afka kale ku hadlayana ilaah baa kala xisaabtamaya maanta maalin aan ahayn shirkadda ee dayib mooyaane anagu xalaalo meel kale aan ku qalayno xooli baa noo raystay har bay noogu xareysan yihiin bacadkay ka asturan yihiin dabayshay ka asturan yihiin shaqaalihii baa noo nastay oo maanta meelu ku tukada helay oo meelu seexda helay oo meelu midiya dhigta helay xerada shirkadda dayib noo samaysay laan kula heshiiyey 5 kun annagu meel aan wax ku qalmeen hiliblayda ma fatibay wax ku qalin haday aaw ka kaxaysan ugu qalmeen waan diiday waxaan leeyahay maayir kale darbiyada ariyaha ku qala islaamaha faraya hooyooyinka iyo hooyo waxaan leenahay ma ka yeelayo inaan banaanka kuugu qalaadi iyana qaar ka mid ah dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa qeexay faya dhowrka ee shirkadda dayib ay u soo kordhisay hiliblaydan xoolaha ku qasha kawaankan mortem iyo postmortem baanu sameynaa antemortem waxa weeye neefku intuu nool yahay leerashka ku jiro ayaanu baaritaan iyo validation iyo visual examination ku sameynaa qodobka labaad waxa weeye waa postmortem waxa weeye neefka marka la gowraco ayaanu xubin u eegnaa wadnaha beerka intaba waanu sameynaa anagu ka dhaqaatiir ahaan kawaankana waxa weeye waa kawaanka ugu casrisan inta Soomaalidu degto yani ma jirto kawaan qura oo dhaqaatiir iyo systemka nidaamka casriga ah ee caalamka standardka u dhisan oo geeyga Soomaalida ka mooyaan mid kale ma jiro saydada laga soo bilaabo ilaa iyo kawaanka la keenayo meesha lagu xareynayo meesha lagu qalayo qalabka lagu sameynayo qaliinka si qaabilsan sharcigaas wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu waxay diyaar u tahay inay sida ugu habboon ay mar walba ay uga shaqeyso sidii loo heli lahaa hilib nadiif ah mahad cali goodir Star TV burco.